بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. مقعي هو أحمد إسماعيل عبدي أو كمقع دير أحمد حدق. وحان كشرحان هاي قبل كالساحل قولها وكيلة أسطانتي دوا الدلايد. وحان كل الشيء مقالة هرقيسة سنة كي كوسا بقول لبي ستيتنكي وحان معامد قران إلى دوس قران دوس دحاء هوس سر إلى هرجع معلنا وحان كلنا مست مقالة هرقيسة. هذا أنت كجدبو وأنا جدبو ويارجني هذا شقاء كوبان مركل لقيته شقوين عن جارو قبسني أنا ويجارها وحان لبح حليل نقضي وأفر سنة لبس سنة يلا بس سنة سحكت قدوميه أورك تنقرد social development organization وكشقين شري أرمها بالشدة جارهان حق عافماتك وحبرشدة يارمها كل اجتماعي جيب بالشدة هالك وحان كهله ويارجني يضد دحكل حق بالشدة waxaanay ii tahay runtii inta aan dunida samafalka ku dhex jiray aan ka shaqeynay arrimaha samafalka waxaan helay saaxiibo badan oo aan qaarna way aragnimo ka helay qaarna aan ka helay aqoon kororsiga taas markaa wax badan bay iga saaciday noloshayda aniga shakhsiga inta hadaan ka gudbo oo aan u gudbo xagga siyaasadda waxaan ugu soo biiray anigu inaan ka gaaro ilaa halka ugu sarreeya ee dalka looga arrimiyo anigoo jecel inaan u maro xeelado iyo xirfado kala duwan mansabyo iyo meelo kala duwan inta kadib hadda waxaan ahay murashax u tartami doona golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan waxaan ka tartamayaa gobolka Saaxil ujeedada igu kaliftay inaan isu sharaxo mansabkan waxa weeye kadib markii aan arkay in golaha wakiilada ee hadda joogay muddada badanna joogay uu noqday gole fadhiida oo shaqadii iyo waajibaadkii uu ummadan ugu igmanaa inuu yahay gole seegay oo baalmare sidaa daraadeed waxaan soo banbaxay in aan bulshadayda matalaadaba ugu shaqeeyo anigoo oo garanaya isla markaana maanka ku haya shaqada laga filan karo gole baarlamaan ama nin doonaya mudane baarlamaan insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa in arinta aan u socdo ama u ordayo uu igu guuleeyo isla markaana iga dhiga mid bulshadiisa iyo dadkiisa kuwii hore wax ka duwan ku hogaamiya ama ugu shaqeeya waxaan jeclahay inaan u soo noqdo ujeedooyinka iyo waxqabadka dhabta ah iyo qorsheysan aniga ujeedooyinka iyo qorsheysan waxa weeye ujeedada guud ee golaha baarlamaanku qabtaa waa shaqo la garanayo oo mucayana dastuurkuna cadeeyay isla markaana waxa kaliya ugu mudan ee golaha baarlamaan ama shakhsi ka mid noqonaya golaha baarlamaan laga filayaa waxa weeye inuu matalaadaba matalo bulshada in ay tahay hay'ad sharci dejineed oo wixii xeerar iyo shuruuc nolosha bulshada khuseeya halkii ay soo marayeen in laga hubiyo markaa bulshada shuruucda iyo xeerarka noloshooda tooska u taabanaya iyo matalaadii siyaasiga ahayd lafteeda oo in aad bulshadaada kolba wacyiga iyo waayaha ay ku nool yihiin siyaasiga laftooda in aad ku xilnaato oo aad ka warhayso iyo in xukuumadda lafteeda lala xisaabtamo oo lagu ilaaliyo xandaabka dawliga ah ee ay ummadda ugu igmantay waxyaabaha ilaa hadda inoo muuqda ee baarlamaankeena uu gabay waxa kamid ah in waaxdii fulintu ay noqotay master of all in ay dhammaan gacmaha ku qaadatay iyadu wixii dawladda ummadda ka filaysay marka waxa dhacay halka in awood maroosigaas uu keenay in dayac bulsho u yimaado inta kadib waxaan ka codsanayaa bulshada gobolka aan ka tartamayo maadaama deegaan doorashadeedu ay tahay gobolka Saaxil in ay codka isiiyaan 31 May haddii Allah awoodda la ogolaado si aan arrimaha aan soo sheegay oo dhan aan u noqdo mid ku metela oo arrimahaas oo dhan hor istaaga isla markaana ilaahay waxaan ka rajaynayaa codbixiyaasha laftoodana waa bil Ramadaan aan weydiisanayaa inay igu soo duceeyaan in haddii alla guushaysiiyo uu igu asturo xilka isla markaana aan noqdo qof si dhaw u matalo